aan ku bilowna xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka Keith Ellison ayaa kordhiyay dacwadda loo haysto askarigii cadaanka ahaa ee dilka u geystay George Floyd waxaanu gaarsiiyay heerka labaad ee dilka isagoo saddexdii askari ee kale ee goobta kula sugnaydna ku soo oogay dacwad ah in ay gacan ka geysteen amaba ay caawiyeen qof geystay dil heerkiisu uu yahay mid ka labaad haddaba wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo hadda ku sugan meel u dhow halkii uu ku dhintay George Floyd ayaa inoo haya faahfaahinta arrintaasi la xiriira Mascade haye aad baad u mahadsantahay Jacfar Kuukay halkan aan ku suganahay waa goobtii ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ay ku dileen George Floyd oo ah wiil madow waxa xusid mudan in banaanbaxyadu wali halkan ay ka socdaan laakiin xilligan aan kula hadlayo jawiga goobtu aad ayuu uga duwan yahay maalmihii hore sidii ahaa oo sida aad la socotay gobolka Minnesota banaanbaxyo xoogan ayaa ka soconayay oo lagu dalbanayay in saddexdii kale ee askari la soo xiro gobordhaweyd xeerlaaliyaha gobolka Minnesota Keith Ellison oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in Derek Chauvin oo isagu ahaa ninkii luqunta jilib kaga hayay George Floyd markii uu nafbaxayay in eedihii lagu soo oodeeyay oo ahayd darajada heerka saddexaad dacwadayd oo dil markaa aan ula kac ahayn laakiin laga baaqsan karay in haatan loo gudbiyay oo loo dalacsiiyay darajada heerka labaad oo ah dil ula kaca marka sidoo kale xeerlaaliyuhu waxa uu sheegay in saddexdii kale ee askari iyagana lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen dhimashada George Floyd marka go'aankan ka soo baxay xeerlaalinta waxa xusid mudan in dadka halkan jooga ay jawigooda aad u badashay markaasina ay soo dhaweysay dadka banaanbaxyada ay ka qayb qaadanaya waxa kamid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu tan iyo markii ay banaanbaxyadani bilowdeen dadkii banaanbaxa ka qayb galay kamid ah haatana waxa igu soo biiray Cabdiraxmaan Mukhtaar oo kamid ah dhalinyarada Soomaalida iyagu maalmahan ka qayb qaadanayay banaanbaxyadan sida aad u jeedaan funaanada uu watana ay ku qoran yihiin hadaladii ugu dambeeyay George Floyd ee ahaa ma neefsan karayo Cabdiraxmaan bal markii ugu horeysa waxaad iga warantaa sideed u aragtaan go'aankii ka soo baxay xeerlaaliyaha gobolka Minnesota Keith Ellison maanta maxamuudow muddo hadda 10 cishaaba waxa loo banaanbaxayay ama guud ahaanba dibadbaxyadii la sameeyay waxa lagu codsanay waxay ahayd cadaalad in loo helo muwaadinka madowga George Floyd ee la dilay marka maanta waxaan dhihi karnaa xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison go'aanka uu soo saaray dacwadda cusub uu ku soo oogay askartii iyagu geystay dilkan inay tahay talaabo horumar ah maadaama uu kordhiyay dacwaddii hore lagu soo oogay ninkii lagu soo eedeeyay dilka maartay George Floyd saddexdii askari ee kale ee la codsanay in la soo xirana mid kamid la soo xiro labadii kalena in la soo xiro qorshuhu yahay waa wax la dhihi karo waa waxyaabaha aan codsanaynay ee loo mudaharaadayay ee banaanbaxyada u baxeen waa talaabo wanaagsan haddii aan ku weydiiyo marka banaanbaxyadii hadda sida aad u jeedo hareeraheena ay ka socdaan gadaasheena waxa ku dhagan George Floyd sawirkiisa oo dabcan halkaasi meeshii lagu dilay marka bal waxaad ii sharaxdaa go'aanka xeerlaaliyaha iyo dalabka askarta kale la soo xiray iyo askarigan kale isna la kordhiyay darajada heerka dilka maxay ka bedelaysaa banaanbaxyadii ma joogsan doonaan mase weli way sii socon doonaan xamuudow banaanbaxyadan hore Soomaalidu waxa ku mahmaaheen deriga maxaa kuleel ka keena waa dabka muddo badan waxa socday dil joogto ah oo aan waxba laga qabanaynin inta baaritaan la sameeyo askartii aan la soo xireynin ama cadaalad dhab aan la sameynaynin marka dacwaddan cusub ee la soo oogay waa talaabo wanaagsan laakiin ilaa si dhab ah dadka madowga gaar ahaan magaalada Minneapolis ciidanka booliiska dhibaatada iyo cunsurinimada ay ku hayaan ilaa si dhab ah loo joojiyo xal wanaagsan oo miro ku dhal ah loo helo banaanbaxyadan waa kuwa nabad ah peaceful ah way sii soconayaan sababtoo cadaaladdu gobolkan kaliya magaaladan kaliya ma aha 400 sano ayaa dadka madowga muwaadiniinta madowga waddankan u dhashay cadaalad darro lagu hayay marka way sii soconayaan banaanbaxyada iyagoo marba heer galaya hadda dacwaddu waxay ahayd dadkii dilka geystay in dacwad lagu soo ogo lana soo xiro waxa loo gudbi doonaa maartay hadda talaabadii labaad
watahay cabdiraxmaan adiga iyo Soomaali aad u fara badan banaanbaxyada si nabada oo wanaagsan bay uga qayb qaadanayeen laakiin sidoo kale muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyay meel kale laga arkayna waxay muujinayeen qaar kamida dadka Soomaalida oo iyaguna bilaqadii ka qayb qaadanaya burburkana lukule qof dhalinyarada la shaqeeya tahay mudana la shaqeynayay arintaasi maxaad ka leedahay maxamuud waa run weeye wadanka Mareykanka oo dhan guud ahaan gaar ahaan baraha bulshada waxa la dhex marayaa dad badan oo Soomaalidu ka mid yihiin oo wax bilaqaysanaya ama muuqaalo sawir iyo maartay leh maqal muuqaal ahba video dad wax bilaqaysanaya wax maanta ku dhex jira laakiin waxa ka badan inta wanaaga sameynaysa sida amnigu ku jira nabadda ku jirto safka hore ugu jira marka dadka bini'aadanka shantaas farad masna laakiin bulshada Soomaaliyeed waxa badan inta wanaaga iyo mudaharaad iyo banaanbaxyo wanaagsan safka hore ugu jira waa tahay aad baa mahadsan tahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ii waramay Jacfar sida aad u jeedo Soomaaliduna banaanbaxyada sidaas ay uga qayb qaadanayaan go'aanka xeeralayaha ka soo baxay maanta saddexdii kale ee askari la yiri ha lagu soo xiro dabcan waxa uu ka bedeli doono jawiga iyo guud ahaanba sida xaaladdu ay tahay waa wax la ogaan doono maalmaha soo socda aad baad u mahadsan tahay Maxamuud daawadayaalkaasi waxa uu ahaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo inala hadlayay isagoo ku sugan meel aan ka fogeyn halkii uu ku geeriyooday George Floyd